kuwii ciise qabtay waxay u geeyeen kayafas oo ahaa wadaadkii sare ilaa meeshii culummada iyo waayeelladu ku urursanaayeen laakiin butros baa meel fog ka soo daba socday ilaa barxadda wadaadkii sare wuuna galay oo askartii la fadhiistay inuu ugu dambaysta arko wadaadadii sare iyo shirkii oo dhan ayaa waxay dooneen markhaati been ah oo ciise ka gees ah si ay u dilaan waase heli waayeen inkastoo markhaatiyaal badan oo been ah yimaadeen laakiinse dabadeed waxaa yimid laba oo waxay yidhaahdeen kan wuxuu yidhi waan farayaa inaan macbuudkii leen dudumiyo oo 3 maalmood ku dhiso markaasaa wadaadkii sare istaagay oo ku yidhi miyaanaad waxba ka jawaabay kuwaanu waxay kugu marag furayaan waa maxay laakiin ciise waa iska aamusay kolkaasaa wadaadkii sare wuxuu ku yidhi ilaaha nool ayaan kugu dheerinayaa noo sheeg inaad tahay masiixa oo ah wiilka ilaah iyo in kale ciise ayaa ku yidhi waa tidhi hase ahaatee waxaan idinku leeyahay hadda dabaadeed waxaad arki doontaan wiilka aadanaha oo fadhiya midigta xoogga ilaah oo ku imanaya daruuraha cirka markaasaa wadaadkii sare dharkiisii jeexjeexay isagoo leh wuu caytamay maxaynu markhaatiyaal weli ugu baahannahay bal eega haddee waad maqasheen caytanka maxay idinla tahay way u jawaabeen oo ku yidhaahdeen markaasay wejiga kaga canbuufeen oo garaaceen qaarna waa dharmaaxeen oo waxay ku yidhaahdeen meeshaad masiixow muu yahay kan kugu dhuftay butros wuxuu fadhiyey barxadda dibadda ah markaasaa gabadh u timid oo waxay ku tidhi adiguna waxaad la jirtay ciisihii reer galiili laakiin dhammaantood ayuu ku hor dafiray oo wuxuu ku yidhi anuu garan maayo waxaad leedahay goortuu irinta tegey mid kale ayaa aragtay oo waxay kuwii halkaas joogay ku tidhi kan wuxuu la jiray ciisihii reer naasareed haddana daar ayuu ku dafire oo yidhi anuu garan maayo ninka waxoogaa yar dabadeed kuwii ag taagnaa ayaa u yimid oo butros ku yidhi run weeye adiguna midkood baa tahay waayo hadalkaaga ayaa ku muujinaya markaasuu bilaabay inuu caytamo oo ku dhaarto inaannu ninka garanayn kolkiiba diiqii baaciyey markaasaa butros wuxuu xusuustay hadalkii ciise ku hadlay diiqu intaanu ciyin 3 goor ayaad idabdiri doontaa markaasuu baxay oo aad u ooyey